waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inay tahay maalin culayskeeda iyo miisaankeeda iskale waxaa reerahayga fadhiya waa madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed iyo cabdiraxmaan cabdishakuur aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan idinku soo dhaweeyo magaalada Kismaayo garoonka aan joogno waliba sheekh shariif waxaan aad ugu soo dhaweynayaa maalmo badan inuu istaanbay ku jiray waxaan ka soo qaadaynaa inuu garoonka joogay oo una ka noqonin waxaan leenahay maanta xirsigaasi furmay isagaana u ahaa inay sida wuxu yimaadaan tallaabadii geesinimada lahayd ee isagu isku dayay waan idin soo wada dhaweynayaa waftigii yimid kulligood xildhibaanada guddoomiyaasha xisbiyada senatarada iyo guud ahaan qolada kale bulshada idinla socday waxaan leeyahay ku soo dhawaada deegaankiinii ku soo dhawaada Kismaayo kaafiso ku soo dhawaada iyadoo loo yimid isku jir badana badan maaha in caleemasaar keliya loo yimid waxaa loo yimid in laysu yimaado in la wada hadlo in la tashado in la is arko in wax la isweydiiyo xaggeenu soconnaa in la is yidhahdo wax aada iyo aada muhiim ah maanta waxaan is leeyahay Soomaaliya waqti ay talo uga baahan tahay mayna soo marin waa maanta waqti ay talo ugu baahnayd inay tashato ay tiraahdo wariyaa maali jiray marka waxaan leeyahay maanta dadkeedii baa tihi sagan saaxiibada wixii la soo maray iyo waxaan soo maray kullu waan garanaynaa taasaan idin leeyahay wixii hadal uu ii dambayn doonaa madaxweyne sheekh shariif ku soo dhawow saaxiibka cabdiraxmaan guddoomiye ku soo dhawow aad baan idinkaga mahadcelinayaa in halkaasoo magac kale aan u sheegi doonana waa ku jiraa waad mahadsantihi salaamu calaykum waraxmatullahi hore wayna salaamayaa iyo dadweynaha sida sharafta iyo qadarinta iyo milgaha iyo maamuus kale noo soo dhaweeyay intaba runtii in badan aan ku taamayna inaan nimaadno magaaladan la cunaqabateeyey lana jabiyo xisaarkeeda waxaan ku faraxsanahay maanta in cunaqabatayntii ay jabtay oo maaragtay dadkii dhammaan halkan isugu yimaadeen waana ku raacsanahay madaxweynaha waxa la isugu yimid caleemasaar keliya maaha siyaasadda Soomaaliya dadkeedii indhergaradka ahaa ama waxgaradka ahaa ama wax ka soo maray ama wax ka soo qabtay oo dhan isku yimid waxaan rajaynaynaa marka in arrintu caleemasaar ay dhaafto oo wixii tala ah iyo dan wadaag Soomaali ku saabsan aayaheeda iyo masiirkeeda meesha ay maraysana maanta ay ka dhacaysana waa loo jeedaa waxaan rabnaa marka horaan u bilownay Soomaali hore u soo waday in aayaheeda ay gudaha ay uga tashato meeshii ay dalka banaankiisa uga tashan jirtay haddii marka magaalada Kismaayo maanta ama Jubbaland ay noo martigelisay caleemasaarkii madaxweynaha iyo wada tashigii ummadan isugu yimaadeen oo ka dhaxeeyay waa dhagax laba shimbir lagu dilay waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa dadweynaha reer Kismaayo iyo hogaankooda oo ku adkaystay inaysan u nuglaanin xisaarka iyo cunaqabataynta looga faa'iideystay awooddii dawladeed iyo midii qaranka intaba aad iyo aad u bogaadinaynaa qof kasta oo xisaarkaas dhibka weyn ka soo gaaray inay jabiyaan waa bogaadinaynaa oo arrintaas ku adkaystay waxaan rajaynaynaa in talo toosan iyo mid maaragtay wax garad leh intaba hadduu ilaah yidhaahdo ay meeshaan ay ka soo baxdo haddii noo dhammaado caleemasaarka haddii nebigana wuxuu yidhi unsur akhaaka daaliman oo madluuman marka nimankan walaalaheena talada hayana inaan sidii gacmaha loo qabo lahaa ayagaan u gargaaraynaa sidii gacmaha loo qabo lahay inaan ka wada shaqeyno ayada nafteedana meeshay ku jirtaa waa mahadsantihiin asalaamu calaykum walaalkay madaxweyne axmed madoobe maxay ahaato walaalkay cabdiraxmaan cabdishakuur guddoomiyaha xisbiga shariif xasan akhyaarta kale cabdikariim xildhibaanada sharafta leh runtii sharafay noo tahay inaan idinkala soo qayb galno munaasabadan qaaliga ah waana ka mahad celinaynaa soo dhaweynta diiran oo runtii walaalahan reer Jubbaland ay noo sameeyeen wax ku cusub ma waa wax u ah dhaqan markii ugu horeysay ma aha insha Allah markii ugu dambeysana ma noqon doonto waa idinku bogaadinaynaa horumarka aad sameyseen iyo dadaalkiina waa idinku hambaleynaynaa waa ka cudur daaranaynaa dawladnimadii aad jecleedeen oo aad dhinaciina ka dhisayseen aad u bannaan baxdeen in ku dulmiyo in mataqaanaa waxaa laga shaqaynayay in dawladnimada cadaaladdeedu cid walba ay gaarto maanta waxaa nasiib darro ah cadaalad darradoodu meel walba inay gaarto
laga soo bilaabo magaalada muqdisho ilaa meesha ugu dambaysa laakiin waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed dad xura oo fahamsan waxa ka maqan iyo waxay rabaan inay yihiin fursad weyn ay noo tahay maanta gogoshaana loo fidiyey sida walaalkay madaxweyne Axmed Madoobe uu ka dhawaajiyey cali masaar kaliya ma aha iyo Cabdiraxmaanba waa wada tashi maxaa yeelay walwal badan aan ka qabnaa sida wax u socdaan saraaxa ani waxa la igu tiri jiray dadka aad mataqaana dawladda ugu dhow oo mar walba dadka gacmaha qabto yara war hala daayo maanta ana hadda xaaladda waa la socotiin 30 sano kadib in loo celiyo nidaamka litalis oo aan ogoleyn sharci oo aan ogoleyn Soomaalinimo oo aan cid oo xurmeynayo aan la arkin runtii waa nasiib darro laakiin waxa Ilaahay mahadiisa inaan ku wada baraarugsanahay oo wada joogno taladeeda wada leenahay Soomaaliya meeshay joogtana ay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato waa jecelnahay dawladnimada sharciga inay ixtiraamnaan rabnaa waxaan rabnaa laakiin dawladuna inay ixtiraamto waxa yaroo noo qoran muhiim ay noo yihiin ma dhamaystirna waa run laakiin waxaan rabnaa isaga in lagu dhaqmo si loo gaaro mid dhamaystiran oo aan ka wada qayb qaadan marka ma rabno runtii in dawladnimada ay u dunto sharciga lagu dhaqmi waayo dadka Soomaaliyeed waxay ku wada joogeen sharci ku wada joogeen waxay ku wada joogeen waxay u wada dhasheen oo Soomaalinimo ah ahalnimo ah laakiin waxaan rabnaa in lagu daro sharci waqti badan lagu soo bixiyay dawladda koobaad lagu doortay maaha dawladdan waa dawladda labaad lagu doortay marka walaalkay Xasan Sheekh oo asagana maanta runtii iga soo horeeyay oo mahad celin runtii doorka fiican oo ka qaatay dastuurkan hadda yaala qofka koobaad lagu doortay asagoo ahay waxaan ogolaaday inuu qofka ku guuleystay waa ka tagay sidoo kale uu sameeyay madaxweyne Farmaajo ku wareejiyay marka dastuurkii hore loogu dhaqmay maanta in la iska laalo oo la yiraahdo ma shaqeynayo annaga waxaan u aragnaa arrin khatar ah waxaan u aragnaa arrin aan la aqbali karin arrin aan indhaha laga qarsan karin qarannimadii dumaysana ma aamusi karno maxaa yeelay eed waan qabanaysaa mas'uuliyadaan qabanaysaa dad waaweyn aan meesha joogay marka qof walba Soomaaliya waxaan jeclaan lahaa inuu qalbigiisa ku qabto annaga waxa aan rabno inuu sharcigu sareeyo wax kale oo ma aha 4 sano aan ku haysan hadduu mar kale guuleystaan aan ku haysan laakiin waxaan rabnaa sharcigu inuu sareeyo doorasho xula oo xalaala oo Soomaali wada joogto oo xasilooni keeni karta inay timaado taasna waxay ku imaan kartaa in la tashado oo habka doorashada loo galaayo hab qola gaar ah ay samaysto oo sanqan waxaan ka shaqeynaa waa xisbiyo waxaan ka shaqeynaa waxa waaye dalku inuu u wareego si dimuqraadi ah marka internationalkan waxaan leenahay waqti badan ku soo bixiseen hanti badan ku soo baxday dawladnimadu adinku iska aamusan inay dushiina ku dinto wax la aqbali kara ma aha inaad qaybtiina qaadatiin oo aad ka soo baxdeen meelaha ku jirtiin anaga waxaan aaminsanahay in laga maarmaanta anaga waxaan isleenahay shacabka beenta oo loo sacbinayo dawladda wuxuu xoojinayaa hareer marka iyo garab marka iyo burburinta sharciga taasna Soomaaliyeed ugu ma jirto marka waxaan rajaynayaa insha Allah dadka wax garadka halkan jooga inay ka qayb qaataan wax taariikhi ah qof la nacab yahay ma jirto qolana la nacab yahay ma jirto annaga waxaan jecelnahay sharciga in lagu dhaco marka hadallada beenta umada lagu wareeriyo waxaan leenahay waxba soo ma kordhinayaan waxa loo baahan yahay waa dawladnimo taas aan isugu nimiday taas madaxweyne Farmaajo asagoo 40 maalmood in ka yar joogo madaxweyne ku noqdo ku ixtiraamay ولنا وأكو احترامنا هذا وأكو احترامنا لكن وحا مهمة شرعا إلا إلالي شرعا إلا إلالي أو دولد إلالي سمع أو بارس هذه على ما سنتم